waa weerarkii maanta xarunta golaha ahaa dowladda hoose xamar ee ku soo qaadeen kooxaha qawaariijta al-shabaab ayadoona kooxihii soo weeraray dhammaantooda la toogtay imise ahayn tiradooda waxaa galabta 10kii iyo 4tii iyo 30 daqiiqo lagu soo afjaray kuway ku soo afjareen oo goobta lagu dilay dhammaantood afjaridaasi qaabka ciidamada u galeen yaana soo afjaray ciidamada soo afjaray waa noocee warbixin la xiriirta ayaan idin u diyaar garoobay xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir ayaa maanta weerar ismidaamin iyo mid rasaas nool loo adeegsaday kooxihii qawaariijta ku soo qaadeen abbaara salaadii duhur markii la geli rabay waxaana halkaasi gudaha u galay kooxihii qawaariijta al-shabaab waxaana markii dambe ka bilaabeen in halkaasi tacshiirad ku dhex martay ayaga ciidanka dowladda Soomaaliya balse khasaaro kala duwan ayaa soo gaaray halkaasi dad shacab ah oo ku sugnaa isla markaasina risaasta iyo qaraxyada iyo waxyeello ay gaarsiisay ayadana goobta ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya soo gaareen inay xireen wadooyinka soo galay kuwa ka baxa xarunta gobolka banaadir ayaa maanta marka halkaasi weerarka uu ka dhacay gudaha aan loo dhawaa karin ayadoona gaadiidka gurmadka la arkayay ambalaaska oo dad kureynayo dad dhaawaca iyo kuwa kale oo meedad halkaasi laga soo bixiyay waxaana goobta imaaday ciidanka ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska ee sida gaarka u tababaran haramcad loo yaqaano ayadoona sidoo kalena ay sameeyeen qorshaha ee lagu soo afjarayay iyo badbaadinta bulshada wajigii koowaad ayay waxay xarunta ee dowladda hoose ee gobolka banaadir ka sameeyeen badbaadinta dadka shacabka ah iyo mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa waxaana markii dambe u suurta gashay in gebi ahaanba kooxihii weerarka soo qaaday qawaariijta al-shabaab gebi ahaanba lagu dhex toogto xarunta gobolka banaadir Saadax Dojiso oo ah afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka warbixiyay maanta weerarkii lagu soo qaaday xarunta dowladda hoose isla markaasina khasaaraha ka dhashay dadka shacabka ay soo gaaray dhimashada iyo dhaawaca iyo sidoo kale kooxaha nabadiidka ah ee weerarka soo qaatay casharkii loogu dhigay isla markaana oo lagu soo bandhigay goobta meedadka kooxihii weerarka soo qaaday iyadoona ay tiro ahaan ilaa iyo 6 ruux lagu sheegay qawaariijtii naflacaariga ahayd waxay soo weerareen xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ilaaliyay argagixisadu meelihii ay rabtay inay gaarto laga hortagay waxaana lagu ekeeyay in argagixisada dhammaantood la soo afjaro waxaa galabta 10kii iyo 4tii iyo 30 daqiiqo lagu soo afjaray kuway ku soo afjareen oo goobta lagu dilay dhammaantood khawaarijtii oo tiradeedu dhammayd ilaa 5 qof oo meydkoodaba hadda aad aragteen iyo qof kale oo ka mid ahaa khawaarijta naflacaariga ahaa oo weerarkii hore ismiidaaminta ahaa iridda hore ku dhintay halkaas ayaa 6 qof oo khawaarijta ka mid ahaa ciidan ku soo afjareen gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee maamulka gobolka banaadir ahna kusimaha duqa muqdisho iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu yiri waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed waxay taasna tusinaysaa naflacaarinimada iyo in ay shabaabku nihaayadooda ay bilaabatay naflacaari ay yihiin namana baqdin gelin doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah taala bulshada adeega aan u haynana marnaba naga hor istaagi doonaan dibna uga ma laabanayno waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan waxaa la joogaa xilligii la dabar goy lahay khawaarijta oo ah cadawga ummadda Soomaaliyeed waana ka guuleysanaynaa insha Allah taala balse maanta waxay rabeen markii hore markuu qaraxa dhacay sida caadadooda ahayd inay gudaha ay u galaan ciidamadooda ee halkaasi dhibaatay ka geystaan balse markuu qarax dhacay durbaba albaabka waxaa ka daba gudbay
ciidamadii ilaalada ahaa ee halkaasi joogay, iyadoona sidoo kalena sameeyeen in aysan u gudbin ay una weecan xarumaha kale ee gudaha ku yaala ee mas-uuliyiinta iyo shacabka ay ku jiraan. Waxaana intaasi barbar socotay in ayaga qura dhinac loo boriyo iyo sidoo kalena ay meel gooniyaha markii tageen dadkii iyo weliba mas-uuliyiintii halkaas laga soo saaray, dabadeedna lasoo dhigo meydkooda meeshani ay u jeedaan. Waxaana halkaasi loogu soo bandhigay saxaafadda, maadaama la rabo bulshada inay